سياسة وهلو شيء محاكر ولا سمين كلا أنا وحيلتها هي هجان مركز لقى هالضايو نورش أوردن بالغ هالضايا هدي مركز اللي يردوا واجب كودا إيجوتان هاي سميسن كران يجون سياسة يكرس أوردينين أيوة هاي سميسن كران organization إليهن يجو يسمين كران والنوع والبله يعني حاكم إذا أرضنا وحبرته وكله سيد أدوك اللي يقانو أنتي وحوض برتبة أوروبا يسمين كران وحنا نقل لسان وهذا مركي ترى مثلا مركو يلي قطر وكله ويلي كنت الدنيا السعودية ويسعوا إلي محاجرة وهو ري قطر يد وحيقولوا قاتلين لي بريشر جروبس كله تعامل الأرض هدي مركا مثلا ودن كان ويا شبونتلان أي شان لما بقول صدح بقول أورجانيزيشن هدي شان قارو حي كشقين يعني دمر كي حقوق دولا قار عروته كشقين يعني قار كشقين قار بحساب كشقين قار بإيكونومي كشقين وحول با كل كي صوب بحان دولة دمر كي اعتماده وحي هليسا مركا dad aan kuraasidanba u soconin laakiin inay wax toosiyaan kaliya ay ka go'an tahay heli karaan anu marka waxaan qabaa inaan dhinacaas isu toosino nolosha wixii taban siyaaso xiise gaar u qabo way gali lagama celin karo laakiin waxaan ka hadlaynaa in bulshada la toosiyo u baahan yihiin yani hadda mesela in laga faano shaqo ka hadlay professorku si xoog leh macallinimada laga faani waxa laga faanayaa dhulka in la xaqo waxa laga faani wax kasta laga faanayaa marka bulshada hadii dhalinyaradu intay ishabeeyaan ay xoog yeeshaan waxaan rumaysanahay dadka siyaasadda aadaya dad yar bay noqonayaan laakiin dadweynaha ayaa siyaasadda toosin kara dhaqaaluhu markuu xumaado oo 200 organization ay dhahaan corruption baa jira mesela magaalada muqdisho ka jira ama wuxuu ka jira baydhaba ama wuxuu ka jira garoowe markii waxa soo baxaan dawladdu warkaas dhageysanaysa in la saxal isku dayaa ana waxay la tahay marka dhamaanteen wax waan toosin karnaa laakiin sida lagu soo celceliyay danta guud inaan u soo jeesano taas ay ugu muhiimsan marka loo yimaado hoggaan ayaan rabaa inaan noqdo gabadhaydii hoggaan inaan noqdaan rabaa anigoo ka fayow jirooyinka bulshada haysta taban waxaa la yiraahdaa markii laga sheekeynayo cibaadada dib meel dhammaanteed wasakh aad ku nooshahay wasakhda in ka mid ah iyadoo maradaada ku taala tukanaysaa yani waxa weeye la iskama ilaalin kara 100% yani dhibta bulshada ka jirta markaan inaan wax toosino dhammaan ma la iska ilaalin karo yani laakiin maxaa la rabaa xagga saxda inaad aadaa laga rabaa haddii marka fiir aad hoggaan run aad noqoto waa u sabraysaa dadka yaa ugu fadli badan nabigu soo sheegay wax badan marba taan meel munaasab nabigu dadku sheegaya ruuxi dadka dhex gala oo dhibtooda u sabra ayaa dadka ugu fadli badan baa leeyahay kaas ugu ajir badan inaga marka dhibta ina haysata marka rabto inaad wax bedasho sabirna aadan lahayn waxa bedeli kartid aniga anoo macallina aan riyaad 10 sano macallin ka soo ahaa ma sha Allah xafiis weyn baan lahaan jiray baabuur weyn oo cusub baan lahaan jiray ma sha Allah isu kay toosnayd marka xamar oo waxaa nimid markaad shandayr wadato aad furayso si aad u tusiso inaan waxba ku jirin 29 waa furay shandada inaan waxba ku jirin aad tusinaysaa yani maxaa macawiisa aad qabtay laga furanayaa war meel balaayada maxay keen haddaad tiro iska carartay war markaas waxaan bedelaysid laakiin hadda maanta markaan magaaladan joogo waa magaaladeedii haddaan baydhabo tago waa taydii haddaan xamar tago waa taydii maxaa jira xertaydii baa meelba joogto soo maaha soo xertaydii ma tihin hadda khalaas iskuulaadka wax ka soo samaynay waa ka saaxiibkan ustaas salwa khalaas jaamacadkaas ka yimid adduunka idinla joogaa waxaa laga wadaa in loo sabro qiyaado ruux waxay ku soo baxaysaa wasakhda in ka mid ah in la aqbalo adoo diidan marka adoo wasakhda aan ogolayn oo ku tukanaysa haddana bas tartiiba uga mudaysa marka taa taban su'aal kale oo gadaal waxaa ku jirtay gabadheeda iyaduna runaan gadaal bay jirtaa taan aan iska raaciyo caruur bay wax bartaa ilmihii marka waxay baraysay aan laga nadiifin markii guriga aadaan way isla socdaan waxaasoo dhan fiir waa hoggaan meelano gabadhaasi waa hoggaan toosan waay ilmihii yaraa wax baraysaa taas waxaan rabay inaan run ahaan aan khayr laha siiyo irshaad dalladda irshaad inaan u sheego
marka soo socota sidii moogtahay ilmo in la tarbiyeeyo waa waajib waaye laakiin in la tarbiyo waxaa ka horeysa hooyo iyo aabbo aan wax badan soo baranin ama qashinkaasay ku dhex jireen oo qumaati ugu dhex jiraan qashinkii ilmahan marka isagoo yarba waxaa la baray cayda iyo xumaanta iyo waxaasoo dhan waxaan isleeyahay haddii jaanis aanu helo in hooyo iyo aabbo horta markoo training la siiyo tababar oo ilmaha se ula dhaqmi lahaayeen la baro markaa kadib yuu ilmahani moogtahay isagoo aabbiyo hooyo wax yaqaana ka soo baxa guriga ayuu macallimada u imaan lahaa laakiin hadda wuxuu imaanayaa isagoo maqlaya sheekada taban ilmo yaroo dhalay oon 1 sano iyo bar jiraan dugsi waa geeyey xamar markaan nimid bas walaalii baa ka waaweynaa iskala fadhiisanay maxaad u geysay baa leeyahay quraanku baran baan ku yidhi ilmo yaan sano iyo bar jira ma quraan baranaya imsa quraan baran karaa dhaqankeena waa maya quraanku waa maxay quraanku waa hadal alif laam mim dhalika alkitabu la rayba hudan lilmuttaqin maxuu yahay wuxuu yahay warbal gabadhaas quruxda badan arka bal meesha mari arka waa sidaas waay waa hadal yani quraanku waa hadal sidoo marka u baran kara hadalka iyo quraankan u baran Soomaaliyeed markaas ilmihi isagoo weyn waxba la bareenin kulli marka wada hadal xun oo dhan u baran ku fiican u baran intu barana quraankana baranaya waxaan ka wadaa hooyo iyo aabbo aan tababarno oo hal la tadriibiyo oo dadaalka ugu weyn madallati irshaad qayb kamida dadaalkooda halka ha geliso aniguna inta yar tajriba isoo martay inaan ka qayb galo ayaan diyaar u ahay aad baan ugu maasantay caruurta maartay saad ugu dadaalayso laakiin ha ka daalin shukran marka loo yimaado daba dhalinyarada waxa hor taagan wax fara badan waa run dal dhan oo duway baan moogtahay dalkan wuxuu dunsanaa 40 sano ka badan buu dunsanaa dalkan 77kii buu dumay sidiisaba يعني إلا خلد ما مرة موقتها سبن كيبو دمي تضمن سنة الدولة وحي قبته الشقة وين بقبته أو يابله جامعات بغل فري إسبتال بغل فري أنا طبعا وحير بغل ولا ميل مركز سوق علي أيان ميدق سفيت لا ديرني ولا دمي مركز السوق علي اللي بيجي سيداتن كي تعليم الصومالي ده محافظ قانا بقول كي اللي حدا إسكولاتكم مش قينين maxaa jira dalkii burburay ma ogin inuu marka burburay dawladii baa taagan korka taagan moogtahay saadaradeed fiiri waxa la rabaa dhalinyaradu inay ogaato burburku waa weyn yahay burburka marka waa inaad ogaataan inuu jiro cid idin maqan marka ma jirto yani khayraas iyo saaxiibka si fiican u sheegay cid idin maqan ma jirto waxaad yeelaysaan xoog baad yeelateen cilmi isku tashada waa saas waaye tacliinta wax sax ah ma laha ina idinku saxdan baa la karabaa jaamacadahaas kuwa xun iyo kuwa fiican iyo iskuulaadka iyo waxaasoo waa ogtihiin kharaab badan baa dalkeena ka jira maxaa jira roolkii dawlad fiican ay lahayd weli lama gaadhin ruux marka wuxuu rabo sameyn karaa taana waxa weeye waa mas'ala khatara saadaradeed waa ogahay aniga hadda waa idin noolaa ilaa 29 waa idin noolaa waxa jira waa ogahay si fiican baan ogahay laakiin waa in yaroo dadaalana wayn wada wadnaa kulligeen laakiin dhalinyarada waxaa laga rabaa inay goostaan iyagu inay bulshadan toosiyaan sidii loo sheegayna ruuxii isagu aan toosin inta kale ma toosin karo gabadheeda sheegta taana marka loo yimaado Soomaal iyo dawlad inaga taban mushkiladeena haysata taariikhdeena lama qorin inta la qorayna taban way baabaaday taban markii cadawgu inaga reeyay مثلا taariikhdeena meelaha ugu muhiimsan xeebahan ay ahaayeen ilaa herar xeebahan ilaa Kismaayo iyo milindi iyo waxay gaar xodkan hadda kiya inaga isku wada furaa waxaasoo dhan bay taban waxaasoo dhan oo isla shaqeeya jiri jiray qaabku isla shaqeyn jiray markaa shardi ma qaabkan hadda isticmaalku ina bari inuu shardi maaha dawladaha Yurub waagaas London iyo Ingiriiska waxaad maqlaysaan oo dhan iyo Talyaaniga gadaal bay ka wada sameysmeen dad waxay ahaayeen magaalooyin ku nool kolkii la rabana iskaalmaysa kol islaaya saasay ahaan jireen inaga marka waxaa la hubaa dagaaladii ka dhici jiray xamar 1500 oo faras in looga diray herar ana hubaa macnaheedu waa la isu kaalmaysan jiray laakiin shardi maaha sidan hadda administration maanta u jira yani inuu sidaa ha shardi maaha laakiin ibn Battuta aqriya markuu dalka yimid waa 600 oo sano ka hor markuu xamar yimid music baa loo garaacay askar music u garaacaysa martigeliyadiisii buu la yaabay
boqolaal neef bay maalintii qalin jireen buu dhahay dharka lagu sameeyaa qaahire laga jira buu yidhi waa dawlad waagaa sidaa ahayd yuu la yaabay soo maaha wuxuu sheegay inta loo lugaynayo jawhar inta loo lugaynayo zaylac iyo muqdisho lugtu 2 bilood oo kala socotaa buu waa runtii maraakiibta doomihuna markaa laba wiig bay u kala socon jireen dal sidaas marka ayaad ahayd laakiin waxaa soo noqon magaalo weyn bay ahayd fiir xeebaha marka la raaco iyagoo wada dunsan oo saa u soo guryihii la dhisay waagaas arkaysa saa daraadeed dawla way jirtay laakiin waxay duntay maalintii Burtuqiisku raas rajaa saalix intay mareen oo hindi aadeen ayaa badeenan cas maalintaas laga guuray saas way darbadaas ku dhacday markaas tijaaradan xeebahan oo dhan waagaas duntay sidaas marka mar labaad ayaa wuxuu kaga reeyay waxa la diray dabcan dawladda Cusmaaniyada hadda la diray inaguna dawladdaasaan qayb kamid ahayn Burtuqiiska inaga isleeynay sidaas marka tijaaradii caalamku waxay martay kor South Africa oo kale xagaas aaday marka dawlad way jirtay laakiin waxa ina seen tahay shardi ma ahayn marka loo yimaado isbeddelka run ahaan iyo sida dadaalkeena isbeddelka ee mujtamacu fiiri wax fiicanna uu leeyahay waxna uu leeyahay laakiin isbeddelka soo jira waxa la rabaa si caadi ah inaan u ogaano hal maalin ma ku imaanayo hadda dalba inaga dumay dhowr 30 sano ku dhawaan sakaraadnahay alxamdulillah hadda isa soo qabsanaya arta maalintan abaabuleena urada bulshada abaabulayeen warlords oo dhan mayna ogoleen khaasatan koonfur dadkii joogay laakiin urada bulshada markay xoog yeesheen ayaa arta soo sameeyay dawladda ma soo sameeynay saadaraadii hadii loo sabro dawladii hadda way dhisan tahay sax federaal ayna aad u garanaynin ba hadda la sameeyay dhib ma laha aakhirka marka waa la iska heshiin doonaa badan iyo dhulkan iyo waxaan oo dhan oo hadda hal dawlada oo Soomaaliyeed maanta jirta khilaafaadka yaryarka ah ha ku mashquulina fiiri khilaafaadka siyaasiyiin isku hayaan macna weyn ma laha meel ay kala aadi karaana ma laha dawladdaas jiraysa caalamkuna isagoo mid rumaysan yahay dawladaha waaweyn badaada iyo xeebtaadaas iyo waxaasay barabaano dib kaaga ma noqonayaan adiga amarkaaga madaxad kaatay marka waa lagu tumay saas waay waa ina aad u fahamno waxaan isku taagnay reer galbeed iyo reer bari baan isku taagnay marka waxa way si xoog la leeynoo tumay dawladeena saasa loo dumiyay moogtahay yani markaan madaxad kaanay marka ina hadda hoggaanka dhiibano yaa soo gaarnay wax walba waa ogol lahay iska kaana daaya ilaahay ka cabsada masaakiin waxaas labahoba inay ku daynayaan laakiin waxaa la rabaa inaadan iskuna taagin hadda isna dhiibin in waxa adiga dal iyo diin iyo caqiidad leedahay dhinaca waxa laga rabaa inaad waxa ilaashato dhinaca kale aad tiraahdo ruuxan isu baahannahay nimayaho ayna isku dambaabin saas la rabaa marna inaan dhulkeena ka tanaasul maaha diinteena ka tanaasul maaha taana isbeddelku marka si tartiib ah ay u imaanay anna waxaan soo gaarnay iskuulaadka oo hubka aan laga qaadi karin magaalada Muqdisho oo kalkii macallinku uu dabcan inuu ka qabto bastoolada tusaaya ama waa fiican tahay وطبعا في عمرك مرة وياهد يعني مسكا ما فوقين بابور بوصارا ووحله هو يعني بابور بوصارا مركب مد موريانا أدسو تاجي هذيك الطير ومدام كمال موقتها هي حسوا كي تاج هذيك موالنت هذيك مركب قور جيبوا تصي تذكر اللي اسكت تاجا لكن سبع على اللي اسكت تاجا إن قوري مرة دي الأركب خلاص نفتي وقتها تذكر اللي اسكت تاجا مدي دنا اللي اسكت تاجته لكن وحال الربا سمع قولا تذكر اسكت تاجته الربا رح أقول واحد ما بدر ترتيب وقبح موقتها مركب لو يمادو رنهان علمي هدو يهاي كساينس كا يهدو كلا لما أنتي وأود باهنا سو بروفيسور سلو شيء ولا أود باهنا هاي هدي مركب أن قيبتا كهرنو ساينس كادان كهرنا الدنيا ده مرة عينه هدان قيبتا دت كم مدي حيس اللي قلت توسين كرا لجا هرنا مرة عينه ساد ردد ولا بشيء أو ليسوق بتو أو إلى ولا السودان وباهن رنهان مركب لو يمادو أنت كالأستاذ كأبغى جوابي وحان رجينا يا قبل طبعا تعليق في عن الله هيدا وأم هذا لنا يا أدبي أو ما صنتهاي جزاك الله خير طبعا سوء الشيء قبلها هنا طبعا ولا عبسية مركز يعني وطبعا قبلنا إن الإلاليو يا كجر تمدح وي أبي أساس وكله طبعا تربية ده نقلوا عن قيب كم بدواي ساد راد أستاذ كإيجور مري لين ما هذا قبلي ويلتين لوجو كلف عنين الجيران تعلينكم كلف عنا بالعكس
waxaan hubaa markii aan jaamacad muqdisho aan furnay tii ugu horreysay afartii ugu horreysay inay gabdhahay waa hubaa waa caad markaas dadka dhan wiilashu waa xanaaqay wiilashii xanaaqay maxaa u xanaaqaysaan ma tartantaan leena dhaqanka wuxuu yahay isagu inuu super yahay rumaysan yahay superna maaha dadka ugu badan dadka dilana waa wiil saadaradeed macalasaf yani markii hore waxaan dhihi jiray wadaadadii iyo gabdhaha isku mid ah wadaadadiina markii qaar wax dileen marka waan hadda ma dhihi kara yani laakiin waxaan sagaashameeyad waxaan dhihi jiray rag iyo dumarka yaa badan ma waxaa la yidhi haddii wadaadada lagu daro dumarkaa badan soo maaha saas dhaheen haddii wadaadada iyo dumarka la isku daro dumarkaa badan marka waa ku faani jiray maxaa jira wadaadka asalka ah wax ma dili jirin wax ma xadi jirin nadiif buu ahaa marka wadaadada iyo dumarkaa nadiif ahaan jiray marka annaga waxaan rabnaa inaan nadaafadda usoo noqono nimankan dadka laayay marka aan iska celino saan ku heshiinaa in wadaadada iyo waxa isugu dhow dumarka isugu dhow mogtahay waa dadka aan dilin bay ka mid yihiin marka nimankiinaas waxaad yeelaysaan gabdhaha xaqirina kama sarraysaan gabdhaha waa la siman tihiin waa walaalihiin hadhowna mogtahay waa iswada guursano guurkii yar ka xumaanin mogtahay khatar waa taasina run ahaan waxaa weeye sidee loo midaynayaa tiirarkii aan sheegay oo tarbiyada ku saabsan maana aqaana si loo miday waa wax u baahan in dalka dhan inuu ka tashadaan u baahanay soo maaha waxay u baahan tahay manaahij طبعا dhibtu meeshu inaga haysto dalkeenu marna manhaj midaysan curriculum ma yeelanin weligii ma yeelanin talyaani iyo ingiriis iyo faransiis waxaa kusoo biiray masaari dowladdu markay timid marka waxaasaa la isugu geyn jiray af soomaaliga markii la qorayna wixii jiray baa la qoray saa daraaddeed 300 oo macallin ka badan dhowr iyo 90kii ayaan waxaan weydiiyey webiyaasha soomaaliya ku yaala markaan yaabay markaasaa waxaa la yidhi laba webi baa ku taala bas waxaan ku yidhi intii laba webi ka badan maqashay iyaysan hadlin baan ku yidhi 6 baa aamustay hadda imise webi baa soomaali ku taala imisaa rumaysan ka badan laba ka badan intii rumaysan ka badan gacantaa taagto macleesh yani intii rumaysan laba webi ka badan soomaali inay leedahay ama maqashay gacantaa taagto waa 1 waa 2 waa 3 waa 3 waa 4 okay marka ma aha idinka ma aha idinka la yaab ma lihidin laakiin waxaan ka hadlaynaa aniga generationkayga baan ka hadlay iyo professor Solius saas kale curriculumka aan qaadano in ingiriiska laga keeni jiray in masaare la keeni jiray in talyaani baa lahaa dawladuna markii dambe waxoogaa yar hanti wadaaga yaa lagu soo dardaray laakiin curriculum inta laga fiiro marka boosaaso la sheegaa mesela maxaa laga sheegaa boosaaso boosaaso in la yidhaahday ahayd magaaladan oo magaalo taariikhi ahaan jirtay fiiri in ilmaha madaxiisa waxaa la geliyay soo oo badda adduunyada ugu malay fiican leh in sidaa loo geliyaa rabaa maya boosaaso dadkaa loo soo tarxiilin jiray boosaaso dhan suuradan ka haysa maxay tahay meelkaani ku dhacday waay ilaahay baa ku ciqaabay soomaaliya arbay dekad soomaali u noqotay marka soomaaliya dhan bay dekad u noqotay soo maaratid yaab waay saa daraaddeed soomaaliya 3 webi bay leedahay webigaasi wuxuu ku dhow yahay 70 kilomitir webi daawaa la yidhahdaa curriculumka ma ku jiro ma ku jirin curriculumka waa generationkii waxaan ka hadlay idinka maaha saasayna marka boosaaso iyo waxay tahay iyo calalo iyo waxay tahay iyo fiiri xeebtan dhan iyo qow iyo waxaas dhan kuma jiraan marka waxaan aad uga mahad celinayaa run ahaan in la isu geeyo waxay marka u baahnayd inaan inteenan soo qaadano hal manhaj carruurtaan dhalana hal manhaj soo wada qaato gabadh iyo wiilka isguursanayana hal manhaj soo qaato markaas la isma khilaafeen markaas soo maaratid meesha mushkiladu hadda maalan maalintaad ingiriis tagto xataa khamrada dhulka laga cabo waa lagu barayaa baskaa lagu bari khamradaa lagu bari waxaa lagu bari saa u hadasho dadka waxaasoo dhan baa lagu bari maxaa jira dhulka maa raba in lagu qabadsiiyo saa daraaddeed maraan waxoogaa soo joogay oo luuqada ingiriiska iga kala dhuntay intaan khaliijka jiray aan raba inaan soo nooleeyo maxaad cabtaa baa la yidhi markaasaan idhi biyo dadkao dhan la qoslay maxaa jira adiga waxaa la waxaan ka hadlaynaa biyo maaha waxaa la yidhi khamrada nooceed cabtaa ma cabo weligaa ma cabin miya ma weligaa ma cabin waxa la cababa marka laga sheekeynayaaba halka soo geli soo maaha culture-kii baa lagu barayaa marka haddii marka dhammaanteen intaan soo wada baranno carruurteennuna intaasi wada baran lahayd saa daraaddeed boosaaso oo magaalooyinkii taariikhiga ahaa oo carabta kaalmada u diri jirtay yaa la ibari lahaa aniga markaasaan isla weynaan lahaa
laakiin hadda waxaa la barayaa boosadka lagu soo xidho birbiro kule loo kala tago zeyl cooduntay xeebihii dhannaa waaba dhammaatay saa daraaddeed waxaa weeye lama midayn karo haddaan curriculum run aan la samaynin oo inta la isu tago juqraafiga aan baranayno iyo taariikhda aan baranayno iyo waxaanoo dhan aan dib loo raacin ma midoobayno laakiin waa inaan ku dadaalo khasaaraha inaan yarayno marka aad iyo aad baa umahadsantihiin